gabartayda alxoogay dhibkayga inay ii soo baxeen oo dhibkay ciil dartii codkiisii ayaa qayrmay ilmaduna waxay uga da'aysaa si aan joogsi lahayn waa aabe ay dhinac fadhido gabadhiisii oo la kufsaday kadibna muuqaal laga duubay welina lagu handadayo quus rajabeel iyo cadaalad darro waa xaaladda dhabta ah ee hadda ay ku sugan yihiin qoyskan aad arkayso oo ah kuwa nolol maalmeedka caadiga ah la daalaadhacaya haddana ay ugu darsoontay markii gabadhii qoyska u soo baxaysay ee aabbaheed uu ka korin jiray waxbarashadana uga bixin jiray gaari gacan hooyadeedna ay dharbaha u soo dhaqi jirtay dumar iyada la mid ah la kufsaday ilaa iyo haddana loogu hanjabayo in muuqaaladeeda la faafinayo waa dhacdo argagax ku beeraysa beer kasta oo wax dhalay mid kasta oo damiirkiisa nool yahay iyo qof kasta oo jecel in aan addoon kale oo Soomaaliyeed la dulmin 3 nin oo mindiyo ku hubaysan ayaa xilli fiid ah dhexda u galay nuurto oo aan ahayn magaceeda saxda ah xilli ay doonaysay cajiin ay reerku la xoox ka samaystaan waxay ku qabteen mindi waxay ka dhigeen dharbaha waxay ka duubeen muuqaal iyaga oo kufsanaya kadibna waxay ku amreen inay qariso dhacdada haddii ay sheegtana sumcadeeda iyo tan qoyskeeduba baabi'i doonto oo ay muuqaaladaas ku baahin doonaan Telegramka dhacdadu waxa ay ka dhacday xaafadda Siliga Ameerikaanka gabadha cajiin baa loo diray cajiinka haday doonto jidka baa lagu qabsaday jidka haday lagu qabsaday kilib oo ka saaray toorey waxaanu ka tubtay video call waa hooyada gabadhan dhiban ee aan dhowrnay muuqaalkeeda waxay sheegtay in dulmi weyn loo geystay welina aanay cadaalad helin waa tan iyada oo si qoto dheer oo beer xanuun ah uga sheekeynaysa dhacdadan argagaxa leh wuxuu dhagaad iswaashid iyo hadaba amarka aniga aan ku diro adii fuli weysid ya video call-ka ku dhaxdhiga ma faant wuxuu u soo diray 2 cunug oo ilaalo ah boqol mar ayaan ku arkay albaabkayga hal cunug kamid aan qabtay waxa wariyaa kaalay idoo diris waa ii sheegeen aflaastan taagantiin waran cunugaal toori wiil iima joogo cunugaan 2 sano jiro aan wiil ka qaba inta joogo wiilasheedi kale ma joogaan waxa gurga isbagtada iniga jirto ugu soo laalaabanaysa maxaa waa marka hadday sidii tahay ay waxay tii hooyo dhibaan qabaa anigu gabadha waxa jir dhibkaas نوصاصان لا يلا ركاتان لا يواستا فيديو كول لا توبay waan xanay bartaan ku dhac wax suuxay hada dhimirka soo helay na maxaa u sheegay waasayr ma taqaan reerkii waa qaana cidi hay wiilkii magaalada waa qaana wad igay cidi baan u tagay cidi hada u tagay waxaan u tagay islaan kale oo gurga disal ee albaab kor fadhisa u tagay waxaa reerka ma taqaanaa waxay islaamta reerkan cidi islaamtii leed ma joogto oo way maqatay tir inta jirtaa ma taqaan nambarkeeda oo noogu waa noogu wacday islaamta timid waxa wiilkaas magaciisa ma taqaanaa haahay tiri waxa wiilka dambigaas oo gadimgaasaan lagu haastaa ee macnaha adima dhash ma dhalinaytay aniga eedaan u ahay eedo aanu ahay waxa dhalay nin oo adeer ah oo macnaha ninka aniga qabal dhashay cidiisa waalidiinta ma joogan gobolada jiraan saas miya irha hay waayahe ilmihi isugu waco unugi 100 ruux ama ciyaar badan waa dhaxda laga gashaa ee qoftii dhib ku geystay waa in ka soo bixisaa way ka soo dhax saartay gabadhii haday ka soo dhax saartay أنا وافرج مالا تجا وهم وراء مسكح دواي قدومتي مالا أنت جا واي أنا واي فضي يجوا بري واي فضي عن صبي حقول لا مني صلقة وحن نسان نقبته ولا يالو ما يسوق وحسان نقبته ولا يالو نلا وهذا دب كان أجري
waxaan loo gudbiyey wiilkan lagu soo daray wiilka waa la soo waday waa la xiray waxaa la yidhi rafaadka lagu goynaa $5 lacag iska dhiib $5 sheegaydaha eri aniga $1 lacag hataa miili karaa iri ilmahayga xoogaygan waxa maashaa haddaan waday hela ku shubtaa haddaa baa ma qadaa dhibaatana dhibka dayaca ilmahayga laga helaba bariiskoodaan raadinaa waa ma fahanta sidii ay tahay $5 waa maalinkii haddaan meel kasta anta waa muslimka ilaa $5 iisala berigeedii labaad $5 haya sidii rabeeto ku qaat waxaan tagay waxa la geeyay ciidan dawladda waxa la geeyay saldhiga Madiino meesha macallin iftaa Madiina la geeyay Madiina gabadhii waa la baaray waxa dhama laga baaray waxa la yiri maanta qamiis waaye oo macnaha ma shaqeynayo dhakhtarkii amaqan waa noo sabdiga damo alaabtaadan waxaad cadaynta intay taala sabdigu soo laawo sidii aan ugu soo tagay anigu sidii hadda guriga ku joogaa waana tala ka bilaabana ma aqaan ilaahay bay tala u taala laakiin anigu waxaan rabaa ilaahay duqaale ka dhigo oo codsiga la yeelaayo aniga dhibana ah gabartay mustaqbalkeeda waa lagu dheeray waa dhamaatay wax raja ay leedahay male cadaynteeda waxeeda waa la haayaa in waxba meeshaan u eelin waxa kufsadana laba maahan waa halka wiil wax ciyaar toori ah ma aqaan wax kale oo yaa ma sheegi karo laakiin waa wiilka kufsada gabadheed marka waxa u baahanaa adoomaadka iyo wixii muslim oo diinta Nabi Maxamed ka yaqaano inuu xaqayga sin igu soo dhaciyo aabe Axmed Cabdi Xuseen oo gaarigaas aad arkaysaan ee gaari gacanka ah ku maareen jiray qoyskiisa waxa hadda uu sheegay inaanu guriga ka bixin habeen iyo maalin wuxuu xusay in habeen kasta guriga ay ku soo weeraraan koox dhalinyaro ah oo albaabka gurigiisa sidaas aad arkaysaan u gala waxa uuna sheegay inuu hadda ka baqayo in xaaskiisana la kufsado maadaama horay loo kufsaday gabadhiisii welina aanay cadaalad helin albaabkaygana saasaa loo galay ciyaala la soo dirsan jiray saas loo galay macnaha waa laga tabaroon yahay way maanaha inta loo galay ninkan gaar gacan waa xabo ma haysayo waa laga xoog badan yahay saas ilaahay ya waa walba og dhafti anugteeda lagu qabtay ona soo bixin weli qofta markay dhimato oo mase qof ay toogato isla markaasaa la gudbiyaa maxkamad la saaraa ase markaas la xukumaa sida arki jirno maqli jir qofta markii la xoogana isla markaas la xukumaa ase la saaraa maxkamad sawa gabartana waa la baaraa gabartaydu waa la baaray shafartadii waxay taalaa isbitaalka waxa uu sheegay in lacag lagu xujeeyay si uu cadaalad u helo la iska daba wareejinayo ilaa iyo hadda iyada oo aan sharciga lagu qaadin wiil kamida 3 rag oo gabadhiisa dhabka u geystay oo la qabtay kooxdan halista ah ee soo baxday ayaa toddobaad ka hor muuqaal qasab ah ka duubay wiil Soomaaliyeed oo degan degmada Wadajir kaasi oo ay markii mindi ku handadeen ku qasbay inuu qirto inuu yahay nin aan rag ahay waxa soo labeynaysa dhacdadan oo gabadhan miskiinta ah inta la qabtay docda minti laga saaray kadibna sidii doono laga yeeshay kadibna muuqaal laga duubay iyada oo haddii ay hadashana loo sheegay in muuqaaladeeda lagu faafin doono baraha bulshada waa koox cusub oo ka dilaacday xaafadaha degmada Wadajir khatarna ku ah ummadda Soomaaliyeed si kastaba qoyskan ayaa cadaalad u baahan waliba si degdeg ah